gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda mudane Sharmaake Axmed Maxamed Geele ayaa shaaciyay fursad shaqo oo tiradoodu gaadhayso 250 shaqaale oo dawladda Soomaaliland u qaadanayso qaar ka mid ah gobolada dalka. Gudoomiyaha ayaa sheegay shuruudaha laga rabo cidda shaqadaasi xareysanaysa iyo waliba xilliga la bilaabayo. halkan ka shaaciso kaalmo shaqo oo dhalinyarada reer Soomaaliland ay u tartami doonaan. Kaalmaha shaqo ayaa waxay leeyihiin 250 kaalmood oo lagu galayo 5 gobol ee soo socda iyadoo konton kaalmood horena lagu xaysiiyay gobolka Sanaag caasimadiisa Ceergaabo oo maalintii Salaasada lagu gali doono tartankii imtixaanadii la yiraahdo hay'adda shaqaalaha dawladdu iyadoo muddooyinka u dambeeyay gacanta ku haysay kala hufka iyo hay'adda shaqaalaha dawladda isla markaana soo saaraysa xogta dhabta ah ee shaqaalaha rasmiga ah iyo inta u baahan kaalmooga shaqo la baahiyo. sidoo kale hay'adda shaqaalaha dawladdu iyadoo fulinaysa tacliimaadka xukuumadda garoodeynka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa la isla qaatay maamul wanaag iyo maamul daadejin iyo in kheyraadka dalka gobol walba muwaadinka isagoo xaqiisa jooga uu ku helo. Sadarteed hay'adda shaqaalaha dawladda waxaan ka shaacinaysaa 250 kaalmood oo lagu gali doono gobolada Maroodi Jeex, Saaxil, Awdal, Sool iyo runtii Maroodi Jeex shanta gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland marka laga reebo gobolka Sanaag oo imtixaankiisii 50 kaalmoodan hore u baahinay. Gobol walba oo shanta gobol kamid ah waxa lagu galayaa 50 kaalmood oo shaqo oo dhalinyarada soo xareystay ku tartami doonaan fursadaha shaqo ee soo banaanaaday. shuruudaha loo gali doono tartamadan imtixaan baa waxay sidii caadiga yihiin qofku yahay muwaadin reer Soomaaliland inuu haysto shahaadada jaamacadda ku soo dhameeyay inuu kaarka muwaadinka Soomaaliland ku haysto goob kamid ah ama ku dhashay ama ka qaatay goob kamid ah gobolka uu ku tartamayo marka laga reebo gobolka Maroodi Jeex oo tartamayaashu iyagu dhamaantood gobolka doonadu ka soo jeeday ku gali doonaan laakiin gobolada kale gobol walba qofku wuxuu kaarka muwaadinka ama ka aqoonsiga wuxuu ka gobolka uu ka qaatay uu tartanka ku gali doonaa. tartamayaasha kala duwan waxaan ka filaynaa inay soo xareystaan maalinta Axadda way bilaami doontaa haddii la yiraahdo waxaana xirmi doontaa Axaddeeda kale taasoo la macnaa in 25 bisha oo maalinta Axadda gobol walba xafiiska barsaabka oo kugu diyaarsan yihiin mas'uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dawladda taxaqa ku soo xareysan doonto iyadoo maalinta Axaddeeda kale kooda bishana ay xirmi doonto. tartamayaasha kala duwan in gobol walba maalinta Axadda ka bilaabaan xareysigaasi si ay kaalmaha shaqo ay u helaan. arrintan baa waxay bilow u tahay maamul daadejinta maamul wanaaga iyo muwaadiniintu iyagoo xaggooda jooga kheyraadka shaqaaleynta iyo waxa dawladnimada lagu wada leeyahay inuu qof walba halkiisa fursada shaqo iyo tartamada uu ku helo. arrintan bilow u noqon doonta arrimaha haddii la yiraahdo dhammaan dhalinyarada kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan rajeynayaa nasiib wanaagsan iyo calaf cilmigooda ku saleysan iyo qalin aan qabiil ku xidhnayn inuu gobolkiisa tartankaasi uu ku soo helo iyagoo guuleystayaashuna gobolka iyo xarunta haddii looga baahdaba. sidoo kale waxa uu gudoomiye Sharmaake Geele sheegay in 250 shaqaale ay 90 kamid noqonayaan haween. waxa ku sid mudan in 300 kaalmood boqolkiiba 30 ay noqon doonaan gabdho taasoo la macnaa inay 90 gabdhood ay iyaguna fursad shaqo ay heli doonaan. hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay gadaal ka soo shaacin doontaa qoondeynta ay ugu tala galaan dadiyowga mudan qoondeynta ee runtii ama naafa Ilaahay subhanahu wa ta'ala jirka ku imtixaamay ama gaar loo faquuqay dadka gubta ee gaarka loo faquuqay qorsheynta iyaga ay u hayaan. عرف يترتب ونكسب من غير تشينية ينترتب هذا سقف والبقوب الكيسة أو كسر حريستو. أيان لا عبد الله جامع ورباهين تعالمي SPC مقالة برعو.